isagoo video duubay show saaran show stage saaran ayuu dhintay brother ya la ilaaha illa allah ya inkastoo gaal iska haanad iska sii fogaad u maleena okay jo khuda khud bi de assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada baydin leenahay marka mawduuceena maad saad ciwaanka taytilkiisa ka soo aragto waaye fanaankan Rip Costich lagu magacaabo ayaynu ka sheekeen doonaa qisadiisa iyo sababta uu u dhintay ya marka fanaankani caadiyantiisa wuxuu ka soo jeedaa South Africa saadooda ogtiinba marka labadii sano u dambeysay waxa uu noqday fanaankani fanaan aad loo jecel yahay hadal hayntiisu badan tahay caan aad u noqday ma fahmaysaa waxaan ka hadlayo marka fanaankan ayaa noqday fanaan caan muddo aad caan ugu noqday fanaankan ayaa waxay sheegeen familkiisu in dhimashadiisa minaha familkiisu xitaa ma aaminsano dhimashadiisa ya minaha waxay u maleeyaan hadaqsigan minaha waxay u maleeyaan in laga dambeeyo dhimashadiisa ama sun la siiyay ama wax la siiyay ya marka fanaankan aad arkaysaan waa fanaan la dhaho Rip Costich baa la dhahaa marka fanaankan ayaa noqday fanaankii saddexaad iyo fanaankii afraad wuxuu yahay mooyaane wax uu noqday fanaankii saddexaad ee ku dhinta stage subhanallah fanaankan aad arkaysaan waa fanaankii saddexaad ee ku dhintay isagoo stage saaran ya subhanallah qoladii la shaqeynaysana waa la weydiiyay marka ninkan waxay yiraahdeen nin aad loo jecel yahay cod macaan Rip Costich saad halkan uga arkaysaanba marka uu dhimanayay laba jeer ka hor ayuu sii dhacay markii saddexaad geeridiisa ayaa timid ya ma fahmaysaa waxaan ka hadlayo marka fanaankan familkiisa iyo booliska ayaa ku daba jiro sidoo ku dhintay iyo qaabka uu u dhintaba ayaga ayaa dabagal ku haya dadkii dilay cidnaba dilin wadka ayaa keenay muuqaalkan aad halka ka arkaysaan waa muuqaalkiisa u dambeeyay uu TikTok soo dhigay ya ma fahmaysaa waxaan ka hadlayo marka Rip Costich inta baynu ku oran doonaa booliska waxaan daba taagana minaha qofku waa dhintay kalarku haduu isbedelay maqrib baa sii galaya inaga raali haado okay marka fanaankani haduu uu dhintay wax laga daba socdo waa fahmi laaya dadku minaha gaaladu ma aaminsanaba qof baa dhimanaya qofkan uu dhintay waxa isleeyahay haduu dhinto dilkiisa dad baa ka dambeeyay bay soranayaan marka fanaankan inta baynu oran doonaa daqiiqado hadii yiraahdeen ka raali haada dhukuna waa sii madoobaanaya horta waxaynu isla eeganaa fanaanka daree TikTok waxay ka dhaheen okay full screen الله هكلمين جفكيني جيريدنا دنيا أنت أتصارنتها وعد أركتي مسناد أركي دونتا وحيابك يا بيا شخصك السوق كل حجر حماننا وحالة تصاد عدو كوانا قاتو عدو مقال كانوا حالين كوجوسو قد بين دوران صاحبي الجيريدي أرجع حل هذا كتمت فنان كرير كونفور أفريقيا كوستي بس أنا جو حنا أحسن تايجا وحنا كل سنين اللايك صارتا مقال كان سوق لترزح حجر كوبلينج إيتاو فلو صاد صوبته وحيته هدي رجلين وحاجات سبتدي تاجريش فنان كرير كونفور أفريقيا دمان ديوجا عالم كا يا عندها صار جيري كتمت ريب كوستي كاسو فنان أدلوجي qaanogeyga koonfur Afrika muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya Costich oo laba jeer isku dhacay ka hor inta uusan ka soo dhicin masraxa xilli uu ku guda jiray bandhig faneedka Ultra South Africa ee Johannesburg qabanqaabiyaashiisa ayaa waxay sheegeen inuu yahay fanaan la jecel yahay lehna cod xamaasad leh kaasoo kamid ah fanaaniinta loogu jeclaa koonfur Afrika waxay sidoo kale sheegeen inay aad ugu xun yihiin qasaaraha lama filaanka inkastoo la saddex marayo baraha bulshada lamana sheegin sababta keentay geerida fanaanka booliiska ayaa sheegay in xaqiijin doonaan baaritaanka dhimashadiisa sababta keentay iyadoo qoyskiisa codsadeen in la baaro sababta keentay in fanaankoodu uu geeriyoodo dhacdadan waxay ahayd mid aad u qabsatay dhammaan social media waxayna tusaale u noqon kartaa cid kastoo ku guda jirta xumaan iyadoo geeridu ay ku iman karto xilli kasta waxa doontaba aad ku dhex jirtid haddana tani waa mid tusaale u ah qof kastoo ku dhex jira xumaan iyo kan aan ku jirinba in geeridu ay imaanayso xilliga ay doonto balse waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan share dhaado si ay ugu waana qaataan walaalaheen muslimiinta sidoo kale flow soo dheh haddii ay macquul tahay okay saad arkaysaanba fanaankani waxaa la dhahay waa fanaan manaha aad looga jecel yahay wadanka South Africa aad baa looga jeclaa manaha wuxuuna ahaa fanaan aad cod macaan buu dhahay yarkay hadda reaction ka bixinaa manaha TikTok soo dhigay wuxuu dhahay fanaan aad u cod macaan buu ahaa okay fanaanku waa cod macaanaado ama sida kala ahaado ama aha cod fool xumaade ilaahu hay naga dhigin dadkii wadkoogu noqdo adoo manaha xumaan ku jira hadaan usaan video duubayo hadaan ka waran ya anoo video duuba hadaan ka waran ninkanina waa sad u jeedanba isagoo video duubay show saaran show stage saaran ayuu dhintay brother ya la ilaaha illa allah ya inkastoo gaal iska haanad iska sii fogaad maleena okay
marka muuqaalka inta baynu ka dhihi doonaa muuqaalka like saar okay aad iyo aad baad u mahadsantahay dad muuqaalka like saarto okay